kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal idil ahaantiinba meel walba aad inaga maqlaysaan waa subaxnimo talaadaha taariikhdan ay ku beegan tahay 22 bishii lixaad sanada 2021 Afrikada bari saacaduna waa 7 aroornimo barnaamijka subaxnimo qodobada aan idinkugu haynana waxaa kamid ah magaalada Muqdisho uu ka socdo imtixaanka waa sixitaanka imtixaanka fasalka afaraad ee dugsiyada sare ee gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya kuwaas oo ay sanadkan ka qayb galeen tiro ku dhow 38 kun oo arday wasaaradda haweenka galmudug oo gaalkacyo markii ugu horeysay ka hirgelisay xarun lagula socdo daryeelka iyo ka warqabka haweenka iyo caruurta tacdiyada loo geysto inaan kiisaskooda noodgareyno ama u doodno u qareenno ayaa waxay nagu qasabtay meel aan xogtoodii oo rasmiya annaga iyo booliiska iyo maxkamadda iyo wasaaradda cadaaladdu aan ka helno oo iska kaashano qaar ka mid ah dalalka qaaradda Afrika oo shaaciyay inay iska kaashanayaan sidii ay u soo saari lahaayeen tallaal iyaga u gaara waxaa kale oo aad barnaamijka ku maqli doontaan xogayaha guud ee qaramada midoobay oo la filayo in muddo xileedkiisa labaad uu diradda ku saari doono sidii quwadaha caalamka ugu qancin lahaa wax ka qabashada dhibaatooyinka cimilada sii kulaanaysa ee caalamka barnaamijka waxaa soo saaray Ciise Xaaji Cabdul anigoo Fartuun Ismaaciil Axmed ayaa idin la socodsiinaya ee subax wanaagsan dhageystayaal waxaase intaasoo dhan ka horeynaya wararka caalamka ee BBC-da Cabdifataax Ibraahim Cageere ayaa u diyaara mahadsanid Fartuun dowladda Australia ayaa waxa ay dhaleecaysay qorshaha hadda UNESCO ay aag ballaaran oo dabiiciga uga dhigi rabto mid halis ku sugan wasiirka deegaanka Australia ayaa waxa uu sheegay in khubarada qaramada midoobay ay dib uga laabteen ballanqaadyadoodii hore warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa waxa lagu sheegay in Australia aanay wax ku filan qaban si aagaasi dabiiciga looga ilaaliyo isbeddelka cimilada iyadoo xaalkeeda dib loo eegi doono bisha soo socota booliska Canada ayaa sheegay in dab habeenkii Isniintii burburiyay 2 kaniisadood oo Katholiga loola dhaqmi doono si gaar ah oo shakile dhismooyinkaas oo ku yaal dhulka ay degan yihiin dadka halkaas lagu tagay ee British Columbia ayaa waxay wax yar ka yar 100 kilomitir u jiraan deegaanka Kamloops halkaas oo dhawaan laga helay xabaalo aan calaamadaysnayn oo ay ku aasan yihiin meydadka in ka badan 200 oo caruura xabaalahaas oo laga helay garoomada qaybta deegaanka ee iskuul halkaas ku yaalo ay maamuli jireen howlwadeennada Katholiga xaakim ku sugan waddanka Peru ayaa waxa uu iska diiday codsi ah in haweeneyda ku rajada weyn inay madaxweynaha noqoto ee lagu magacaabo Keiko Fujimori uu dib ugu soo celiyo xabsiga ay maxkamadda ku sugi lahayd dacwad ogayaasha ayaa waxay ku doodeen inay la xiriirtay qof markhaati ka ah kiiskeeda musuqmaasuq ee loo haysto Miss Fujimori ayaa waxay sugaysaa natiijada kama dambaysta ee doorashada ku celiska ee madaxtinimada ee la qabtay 2 toddobaad ka hor howlwadeennada caafimaadka ee waddanka Kuuba ayaa waxa ay sheegayaan in talaalkooda fayraska corona ee Cabdallah uu waxtarkiisu gaaraya in ka badan 92% kadib markii qofka uu qaato 3 doos hadalkaas ayaa waxa uu imanayaa maalmo uun kadib markii dowladdu ay sheegtay in talaal kale oo dalkaasi lagu farsameeyay waa talaalka Soberana dose oo waxtarkiisu gaarsiisan yahay 62% kadib markii uu qaato qofka 2 doos ugu dambeynna hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch ayaa waxay ugu baaqday Cambodia inay sii dayso 3 qof oo ololaya arrimaha deegaanka kuwaas oo u xirtay shaki ah inay maleegayeen fal ka dhana boqor Norodom Sihamoni iyo inay ninkaasi caayeen waxaa la qabtay kadib markii ay muuqaal ka duubeen bulaacad ku darta webi mara halkaasi meel u dhow waa aqalka boqortooyada ee Phnom Penh warka caalamkana waa naga intaas Fartuun aad buu mahadsan yahay Cabdifataax dhageystayaal haatan u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka subax wanaagsan dhageystayaal mar kale aynu ku bilowna ee qaar ka mid ah dalalka qaaradda Afrika ayaa shaaciyay inay iska kaashanayaan sida ay u soo saari lahaayeen tallaal iyaga u gaara dalalka Nigeria, Koonfur Afrika, Algeria, Morocco, Tunisia, Senegal iyo Masar ayaa ku guda jira soo saarista tallaalkooda u gaarka ee COVID-19 isbahaysiga wadaxaajoodyada Afrika ayaa sheegay in qaaradda ay u baahan tahay qaabaha ee dhinacyo badan leh si loo gaaro isku filnaansho dhanka tallaalka ah
afrika ayaa wajahaysa gabaabsi dhanka tallaalka coronavirus ah. haddaba afrika awood ma u leedahay inay soo saarto tallaalka corona? su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa waxaana u bandhignay doctor cismaan cali gaboose oo ka howlgala isbitaalka kenyatta ee magaalada nairobi. faaduun macalin abuukar ayuuna u waramay. horta walaal waxa weeyaan dunidii guud ahaan waxaad moodaa inay fahantay qaabka loo soo saaro tallaalada lagula dagaalamo ama kahortaga cudurka coronaviruska, maadaama qaabkii la fahmay oo wadadii tallaalka lagu sameynayay ama loo soo saaraya la fahmay, waxaa soo kordhay waxa weeyaan in cilmigii samaynta tallaalka iyo qalabkii iyo aqoontii tallaalka lagu sameynayay loo soo waarido africa si ay u fududaato in tallaalka wadamo badan oo afrikaana la helo. marka isla khubaradii, isla qalabkii, isla awoodii iyo fikradii iyo tiknolojiyadii tallaalada kale ee indiya lagu sameynayay ama wadamada yurub lagu sameynayay ayaa loo soo waariday in africa lagu sameeyo. marka wax cusub maahan, waa aqoontii iyo qalabkii oo loo soo waariday in africa gudaheeda laga sameeyo oo lagu sameeyo muxuu ahaa tallaalkii walaal. waa tahay marka doctor, ma jiraa tallaal horey loogu sameeyey gudaha africa amaba xitaa isku day hore ma jiraa? ha walaal, taariikhda marka lagu noqdo tallaala horey looga soo saaray wadamo africa way jirtaa, laakiin wax badan ma ahan oo aada u buuran. marka tallaalada ugu faraha badan ee dunida ma ahan kuwa africa lagu sameeyo, mid ayaa dhici jirtay, laakiin wax buuran oo saasa ma ahan, lagumana samayn jiran africa tallaalo horey umay dhici jirin. maxaa keenay marka in haatan loo baahdo in africa ay soo saarto tallaal? waxa keenay waxa weeyaan in markii hindiya ayaa kontraaga ugu badan ee tallaalka africa loo dhoofiyo kontraaga ku qaadatay. marka maadaama ay dhacday in wadankii hindiya gudihiisii uu cudurkii coronaviruska uu xoogaga dilaacay, shirkadihii kontraaga galay ee africa inay u dhoofiyaan tallaalka qorsho oo ahaa, waxaa ku cuslaatay in wadankoodiiyo baahida intaa leeg ay ka jirto, wadankoodiiyo coronaviruskii culays fara badan ku hayo oo dadkooda ay tallaalka u baahan yihiin ee wadamo afrikaana oo dabadda wadankii ka aha ay tallaaladii u dhoofiyaan ama ay geeyaan. marka taasi markii culayskaasi waxay meesha ka saartay tallaaladii la rajaynayay ee wadamada afrikaanku ay rajaynayeen ee hay-adda caafimaadka dunidu ay ka caawinaysa inaanay africa soo gaarin. marka taasi waxay keentay in laga fakero in africa gudaheeda lagu sameeyo tallaalka. haddiiba lagu guulaysto in africa gudaheeda tallaal lagu sameeyo, ma isleedahay dhanka tayada tallaalada kale ee dalalka horumaray ee lagu sameeyo uu la mid noqon doonaa? walaal, horta anigu waxaan ku sheegi lahaa, marka laga hadlayo tallaalkan ood akrida documentiga iyo dadka ka qaybgelaya iyo kontraagyada dadka saxeexanaya, qaab dhismeedka loo soo unkamay markaad aragto tallaalka loo soo jeedinayo in loo samayn doono, waxay u muuqataa inaanu taya ahaan iyo waxtar ahaan auna marna ka liidan doonin tallaalada horey loogu samayn jiray India ama horey loogu farsamayn jiray wadanka Ingiriiska ama Mareykanka. marka taya ahaan waxaan filayaa inaan waxba uga duwanaan doonin tallaaladii horey loogu samayn jiray Yurub iyo wadamada Aasiyaanka. ma jiraan ayaad leedahay caqabado arrintan ku imaan kara? caqabado way iman karayaan walaal. caqabadaha waxaa ka mid a xitaa haddii tallaalkan africa gudihiisa lagu samaynayo lasoo saaro, ma noqon doono mid haqabtira wadamada guud ahaan africa ee baaxadda leh ee dadkooda ayna waxba haysan, ee dadkooda ay dhammaan wada baahan yihiin tallaal. marka inaan marna oona baahidii kaafagarayn doonin way soo bixi doontaa. taas waa caqabad dhici doonta. waxaa kaloo caqabad dhici doonta wadamada afrikaanka qaar badan oo kamid ah in ay aaminaan in wax africa gudahooda lagu sameeyo wadamadooda la siiyo, ayada laftigeeda waa caqabad. marka caqabadahaas waxaan filaya intaa un keliya maahana, laakiin caqabado waaweyn oo ay kaga duwan tahay tallaalada kale ee wadamada Yurub iyo Asia laga soo saaro ma jirto. maxaa ka mid ah faa'iidooyinka kale ee ugu jira dalalka saboolka ah ee africa ku yaala? walaal, horta waxa weeyaan wuu ka duwanaan doonaa dhowr dhinac marka la eegaba. qiimaha uu kusoo gaari jira africa qaali buu ahaa, marka waxaa la rakeynayaa tallaalkan inuu kusoo gaari doono qiimo jaban africa guud ahaan. waa ta koobaan. talabaad oo dhici doonta waxa wadamo afrikaan ah oo awooday inay soo iibsadaan, laakiin transportationka iyo soo dhoofinta waxaasu qaali ku ahaydna waxay noqonaysaa mid maaha meeshii ka bixi doonto. waxaa kaloo muhiima, haddii tallaalkii loo kale africa gudaheeda laga helo, waxaa la dareemaya inuu baahi fara badan u dabooli doono. qorshuhuna waxa weeye inaan wadan qura lagu samayn ee marka dambe dhowr wadan oo afrikaan ay noqdaan qaar soo saara tallaalka oo aqoontii laysku gudbiyo. marka waxaan dareemaya anugu kolley inay wax badan ka tari doonto baahidii africa ee tallaalka ee dhinaca cudurka coronaviruska lagula dagaalamayay.
kaasi waxa uu ahaa doctor cismaan cali gaboose oo ka howlgala isbitaalka kenyatta ee magaalada Nairobi waxauna u waramayay wariyahayaga Faadumo Macalin Abuukar. qodobkaasi waxaa aragtidiisa kasoo dhiibtay jaamac Faraweyne waxa uu leeyahay qaar ka mid ah dalalka Afrika ku yaala ee ku dhawaaqay markii ugu horeysay inay soo saari doonaan tallaal u gaar ah oo looga hortagayo xanuunkan safmarka ah ee coronavirus waa arin bogaadin mudan waxaana dhihi karaa buu yiri Afrika isku filnaansho ayay cagta saartay. waa hagaaga haatanna wasaaradda haweenka Galmudug ayaa gaalkacyo markii ugu horeysay ka hirgeliyay xarun lagula socdo daryeelka iyo ka warqabka haweenka iyo caruurta tacadiyada loo geysto. xaruntan ayaa sida ay wasaaraddu sheegtay noqon doonta meel u qareento dumarka ee tacadiyada lagula kaco sida kufsiga. horeeya deegaanada Galmudug waxa uga dhacay tacdiyo ka dhan ah dumarka sida kufsi. haddaba si aan wax badan uga ogaano xaruntan ayuu wariyahayaga Axmed Bader waxa uu qadka telefoonka kula xiriiray isuduwaha wasaaradda haweenka Galmudug ee gobolka Mudug Yurub Cabdulqaadir Sheekh Cali. xaruntan maanta aan xarga ka jirnay waxa ay qabanaysaa oo loogu adeegaya dadka victimka ah caruurta iyo hooyooyinka ama dumarka ay ku dhacaan tacadiyada kala duwan sida kufsiga jirdilka iyo wixii lamida ay ku dhacaan. waxaa jirta in la qariyo marka ay ku dhacaan dhibaatooyin dumarka oo kaleeto kufsi oo kaleeto deegaanka looga yaqaano wax ceeb ah qofkii haddii la sheego inay qarsadaan baa dhacda oo aysan sheeginin xarumaha caafimaadka markay yimaadaan aysan teginin booliiska oo kaleeto sometimes aysan teginin xarumaha caafimaadka. marka waxaa taas aan u raadinay inaan safe house helno annagana ka wasaarad ahaan maadaama wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ay tahay oo waajib uu naga saaran yahay dadkaas masaakiinta dhibaatada ku dhacaysa inaan kiisaskooda noodgarayno ama u doodno u qareenno ayaa waxay nagu qasabtay meel aan xogtoodii oo rasmiya annaga iyo booliiska iyo maxkamadda iyo wasaaradda cadaaladdu aan ka helno oo iska kaashano ayaa safe housekan saas darteed ayaan u furnay. oo matacadiyo gooni ah oo dumarka loo geysto ayaad diiradda ku saaraysaan xaruntani sida haddaad sheegtay kufsiga oo kale mise dhammaan tacadiyada dumarka iyo carruurta lagula kaco? hadda waxaa focuska lagu saaraya xaruntan waa haweenka ay ku soo dhacaan dhibaatooyinka sida tacadiyada ama dilka ama kufsiga ama waxaa jira haween dhibaato badan ay ku dhaceen oo kaleeto ama lasoo xaday ama luntay oo maskaxiyan u xanuunsan oo aan garanaynin meel ay ka timido booliiska oo kaleeto sometimes ay qabtaan oo meel lagu hayo qofkaas inta dadkiisa laga helayo oo lala xiriirinayo waxyaabo noocaas in lagu kiyaargarayo hadda baan u daahfurnay xaruntaas. xaruntani iminka aad xarga ka jarteen wixii ka horreeyey ma jireen nidaam iyo qaab kula tacaali jirteen tacdiyada haweenka loo geysto? waxaan kula tacaali jirnay dadka markii dhibaatooyin loo geysto waxay soo maraan xarumaha caafimaadka. inta badanna wasaaradda waxay leedahay ururo haween oo la shaqeeya wasaaradda oo hoostaga oo degmo kasta waxaa u jooga urur haween oo dhisan. degmooyinkaoo kaleeto waxay leeyihiin sidoo kaleeto guddoomiyayaal maamulka ka jira degmadaas iyo ururadaas haweenka ka jira ayaa markii dhibaata dhacdo ama tacadi dhaco wasaarad ahaan waynala soo xiriiriyaan kiis baa halkaas ka dhacay tuulo hiblaayo ka dhacay ama degmo hible ka dhacay. annaga waxaan samayn jirnay gaari baa loo diri jiray qofkaas meesha xarun caafimaad ugu dhow oo uu ka heli karo adeegii loogu talagala qofkaas dhibanaha ah in la siiyo ayaa la geyn jiray inta uusan dhaafin 72 saacadood ugu horeysa. waxaa jira caqabado fara badan oo soo wajaha marka ay timaado in wax laga qabto ama loo qareemo dadka tacdiyada loo geysto gaar ahaan dumarka sida kufsiga oo kale. waxaa jira in xeer jajab iyo qaab dhaqan lagu dhameeyo. arrintaa sidee uga gudbi kartaan ayaad is leedahay? arrintaas waxaan uga gudbi karnaa dhaqanka laftirkiisa oo arrintan xaliya ayaga laftirkooda caqabad badan bay ku haysaa. waxaa alxamdulilahi ammaantay oo aada loogu farxayaa Galmudug inay haysato polis booliis oo dhammaystiran, maxkamad inay leedahay maxkamadii sare oo gobolka Mudug ah oo heer gobol ah iyo heer maamul goboleed ah, wasaaradda cadaaladda oo heer maamul goboleed iyo heer degmo ah. taasiba ay ka midaysan yihiin qofkii dhibaato kula kaca ama falfoolxun kula kaca qof masaakiin ah ama dhibaateeya sharciga uu leeyahay in la marsiiyo. odayaasha dhaqankuna dhibaato ay ku qabeen annaga ka wasaarad ahaana aan odayaasha dhaqanka kala fadhiisanay haddana ay noo dhiman yihiin fadhiyo badan oo wasaaradda iyo odayaasha dhaqanka u dhexeeya xeerna laga soo saari doono haddii ilaahay idina Galmudug oo dhan ah. ugu dambayntii waxaan ognahay in inta badan marka tacadiyada lagula kaco dumarka sida kufsiga oo kale in ay qariyaan oo aysan jecleen in bulshada loo soo bandhigo.
sidee markaa ayaad isleedahay inaad ku kasban kartaan qulubta dadka dhibanayaasha ah iyo kalsoonidooda in ay idiin soo bandhigaan? waxa aan ku kasban karnaa waxa ay tahay shaqada aan qabanaynaa in ay tahay shaqo muuqata oo hufan oo bulshaduna u siman tahay, wasaaradana loo siman yahay, deegaano badan oo aysan gaarin oo sida aa sheegtay oo kaleeto looga yaqaano inay ceeb tahay ama la qariyana inaan tiriino badan ka samaynay, wacyigelin badan ka samaynay, haddana aan wadno cambaign ku aadan oo aan uga gol leenahay arrintaas in la ogaado inay wax jiro tahay, dhibaato badanna ay leedahay, dhib badanna laga dhaxlo caafimaad ahaan iyo maskaxi ahaan. aan rabno inaan haddii ilaah idina sanadkan soo gabangabayno inuu kufsi dambe ama dhibaato dambe oo gabar loo geysta aysan ka dhicin galmudug. taasi waxay ahayd isuduwaha wasaaradda haweenka galmudug ee gobolka mudug yurub cabdilqaadir sheekh cali oo u waramaysay wariyahayaga axmed beder. halka aad weli naga dhagaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee b b c. b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa la filayaa in muddo xileedkiisa labaad uu diradda ku saari doono sidii uga miro dhalin lahaa qodobadii aasaaska u ahaa qorshihiisa hogaameed. 5 sano ee soo socota ayaa la sheegay in waxyaabaha ugu waaweyn ay tahay inuu soo dhalaalo amaba ka soo dhalaalo ay ka mid tahay sidii quwadaha caalamka uu ugu qancin lahaa sidii si wada jir ah wax looga qaban lahaa dhibaatada cimilada sii kulaanaysa ee caalamka. haddaba maxaa ka mid ah fursadaha u furan waa Antonio Guterres? su-aashaasi iyo kuwo kale ayaanu weydiinay danjire ciid bedel oo muddo ka mid ahaa howlgalka Soomaaliya ee qaramada midoobay. wariyahayaga Cabdifataax Ibraahim Cagayare ayuuna u waramay. horta Antonio Guterres waxa waaye nin taariikh weyn ku leh qaramada midoobay si guud iyo si gaar ah caalamka siyaasadiisa. ninkan wuxuu ahaa ra'iisul wasaare hore dalka Portugiis, wuxuuna ra'iisul wasaare noqday 1995 kadibna wuxuu noqday ninkii xisbiga Socialist Party dalka ugu weynaa oo Yurub oo dhan gacanta ku hayay markuu Secretary Generalkii xisbiga Socialist Party noqday. kadibna wuxuu noqday haliyey siyaasi oo caalamka intiisa badan laga yaqaano. ninkii ahaa Secretary General Kofi Annan ayaa wuxuu u magacaabay 2005 inuu noqdo ergeyga gaarka ah ee qaxootiga caalamka u qaabilsan ama hay'adda la yiraahdo UNHCR. kadibna wuxuu ku guuleystay inuu noqdo xogayaha cusub ee qaramada midoobay oo hadda 5 sano dhamaystay. sida uu dhigayo sharciga iyo qawaaniinta charterka ee qaramada midoobay, qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu 2 jeer isu sharxo. kii koowaad wuu dhameeyay, kii labaad buuna hadda bilaabayaa, wuxuuna qaadanayaa muddo 10 sano inuu noqdo Secretary Generalka qaramada midoobay. kaligiisna ma ahayn Ban Ki-moon saas uu ahaa, eeshiyo ka yimid, asaguna wuxuu ka yimid UN-ka. in yar haddaan ku ifiyana xogayaha guud ee qaramada midoobay waa rotational ama waa la wareejiyaa, qaaradaha caalamku ka tirsan yahay loo wareejiyaa. Kofi Annan iyo Boutros Ghali Africa matalayeen, Ban Ki-moon wuxuu matalayay Asia, Antonio Guterresna wuxuu matalayay Europe. sidoo kalena hadda waxaa laga yaabaa in markaa soo socota lagu wareejiyo Latin America ama portfolio cusub oo hadda la sameeyo oo la yiraahdo European Union. marka ninkaas wuxuu ahaa gacda siyaasi oo Europe ka yimid, khaasatan hay'adda United Nations taariikh dheer ku leh. muddadii 5 sanadood ahayd ee muddo xileedkiisa koobaad ee uu xilka soo hayay oo haatan u soo dhamaatay, maxaa u qabsoomay Guterres? Guterres wuxuu la yimid aragti dheer oo siyaasadeed oo dhahaysa waa in dib loo soo nooleeyo aragtidii UN-ka lagu aasaasay oo ah multilateralism. multilateralism waxa waaye in adduunku uu iska kaashado wax allaala wixii dhibaato ay soo food saara, ama dagaal sokoye ha noqdo, ama dagaal dowladeed ha noqdo, ama gaajo ha noqoto, ama horumar la-aan ha noqoto, ama quwadihii waaweynaayo isqabtay. marka arrimihii multilateralismka oo dhibaato badan UN-ka ka feesgaraynaysay buu horta dib u soo celiyey. waa qodobka labaad wuxuu keenay la yidhahdo ajendo 2030 oo uu leeyahay adduunku waa globalize, adduunku waa qoys, waa hal wadan. marka waa in wax laga qabtaa arrimaha cimilooyinka iyo dhibaatada ay taagan tahay. taas waa qodob kale. qodobka kalena wuxuu yiri waxaa laga maarmaana in bini'aadamku iyo caalamku intuu u wada noolaado waa in arrimaha xuquuqul insaanka iyo sinaanta xagga dumarka labadaana ay qayb ka noqdaan ajendaha caalamka. waxa uu keeno wax la yiraahdo centrality of diplomacy oo ah in diblomaasiyaddu ay aabbo u noqoto in khilaafaadka dowladaha ka dhaca dhexdooda wax laga qabto. waxa uu keeno qodob kale oo aad la yiraahdo in arrimaha dumarka iyo xuquuqul insaanka laga dhigo arrimo mainstream ama principal ah, in dowladaha iyo caalamku ay mabdi'iyan qaataan in xuquuqda dumarka hor loo mariyo, inay dowladnimada qayb ka qaataan, in horumarka bulshadana ay rool buuxa ka qaataan. maxaa ka mid a marka caqabadaha ka hor yimid ee 5 sanadood ee uu shaqaynayay? caqabadaha ugu weyn waxa waaye kow
arrintii multilateralismkii oo ahayd in caalamku uu iskaashado oo ayaa waxaa ku dhacday dhibaato badan sababtoo ah madaxweynihii dalkaa la doortay ee maraykanka ah wuxuu ahaa ninkii ahaa hadda xilka ka tegey Trump waana nin aan aaminsanayn diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga iyo wada noolaanshaha caqabad weyn baa halkaa ka qabsaday marka setback bay ku noqotay ama dhibaata ku noqotay in caalamku intuu isu yimaado khilaafaadkiisa wada xaliyo arrintaas horta challenge weyn ba ku noqotay marka labada qodob ee ugu waaweyn oo uu kala kulmay intuu xilka hayay waxay ahayd madaxweyne Trump iyo arrintii COVID-19 hadda maxaa u furan haddii 5 sannadood hor leh uu xafiiska sii joogi doono waxaa u furan kow inuu arrintii horta America siyaasadeedu waa isbedeshay nin Democrat ah oo Biden ah oo multilateralismka xiriirka caalamka iyo wada noolaanshaha dowladaha iyo daris wanaagga aaminsan baa yimid way isla jaan qaadayaan marka aragtidii lagu dhisay UN-ka inay noqoto hay-ad adduunku ku midaysan yahay oo khilaafaadka caalamka oo dhan xalisa oo hal qoys ah oo hal family ah aragtidaas oo ku beesgaraysan charterka qaramada midoobay oo loo yaqaan multilateralism hadda way howlgelaysaa marka ajendihiisii hore ayuu sii wadayaa saddex ka mid oo caqabada ah waxay u badan tahay inuu hadda uu guul weyn ka gaaro maadaama isbedel ka dhacay dalka Mareykanka kaasi waxa uu ahaa Danjire Ciid Bedel oo muddo ka mid ahaa howlgalka Soomaaliya ee qaramada midoobay waxaana uu waramayay waryahayaga Cabdifataax Ibraahim Cagayare waa hagaag dhageystayaal halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo waraysiyo warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta waa hagaaga BBC Soomaali ayaad dhageysanaysaan sidoo kale barnaamijkana waa barnaamijkii subaxnimo ciyaarihi ayaa inoo soo socda balse haatan magaalada Muqdisho waxaa ka socda sixitaanka imtixaanka fasalka afraad ee dugsiyada sare ee gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya kuwaas oo ay sanadkani ka qayb galeen tiro ku dhow 38,000 oo arday sanadkii hore oo dhowr iyo 20,000 oo arday ay ka qayb galeen imtixaanka waxaa ku dhacay tiro ee ka badan 8,000 oo arday haddaba waxa ay dad badani su'aalo iska weydiinayaan qaabka loo saxo imtixaanka sababta keentay in sanadkii hore ay dhacaan 8,500 oo arday sanadkanse sidee bay noqon doontaa natiijadu wariyaha BBC-da ee magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan oo booqday xarunta ay ka socoto sixitaanka imtixaanka ayaa warbixintan magaalada Muqdisho inooga soo diray sida ujeedo meeshan waxa ku qoran buugga markuu san yahay halkan waxa ku qoran xogta oo wasaaradda iyo wax walba halkan waxa ku qoran magaca wala jeexaya macalinka loo dhiiba macankii diidantino qofku saxi doon iyo qofku saxay Ibrahim hadda adiga ama Mustafa Abu Karam ma neetahay lama yaqaan qofka loo saxay waa Mustafa Abu Karam oo kamid ah macallimiin isugu jira wiilal iyo gabdho oo ka qayb galaya sixitaanka imtixaanaadka fasalka afraad ee dugsiyada sare ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ee la qaaday dhamaadkii bishii hore iyo bilowga bishan kuwaas oo ku dhow 200 oo macallin kadib dhicitaankii 8,500 oo arday imtixaankii sanadkii hore ayaa keentay in dad badan su'aalo iska weydiiyaan hanaanka loo maro sixitaanka imtixaanka iyo sababaha keenay in tiro inta leeg ay mar qura wada dhacaan Muna Cali Warsame oo kamid ah gabdhaha gacanta ku haya inay bilowga sixitaanka imtixaanka iswaafajiyaan nambarada faylasha ardayda iyo koorka wasaaraddu siisay galka arday kasta ayaan weydiiyey habka arintaasi la isu waafajiyo iyo ugu dambeyn sida imtixaanka loo saxo anaga hadda waxaan haynaa ardayga inaan u sameeyno koodka oo ka jarno cover page-kiisa meel dhigno after kadib aan gelino bashqada aan gelino macallimiinta aan u gudbino macallimiinta kadib way noo soo celinayaan inta qolkan ay u soo celinayaan qolka markay u soo celinayaan kabacdi data entry lagu sameeynaa kadib aan la saadacayo madaxda sare noo isku imaanayaan kadib ayaa la shaacinaya imtixaanka
agaasimaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Maxamed Caabi Xasan ayaa sheegaya in baaris dheer kadib la ogaaday in sababaha keenay dhicitaanka ardayda 8 kor u dhaafaysa sanadkii hore ay qayb ka ahaayeen cudurka COVID-19 tayada macallimiinta oo sidii la rabay aan ahayn iyo ardayda oo imtixaanka looga qaaday 4 fasal ee dugsiga sare halkii looga qaadi lahaa fasalka afraad oo kaliya duruufaha macallimiinta qayb ahayd duruufta manhajka wax lagu baranayana oo sanadkii hore waxa dhacay ardayda imtixaanka waxa looga qaaday form 1 iyo form 2 iyo form 3 iyo form 4 macna 4 sano wixii wax lagu baranay hal imtixaan lagu soo keenay waxa kale oo sanadkii hore iyadoo dhacday coronavirus aad u xoogana sanadka xogaa soo hoos u soo dhacay sanadkii hore coronavirus wuxuu saameeyay marka furnaanshaha iskoolkii uu xiray marba si joogto u soo laabtay dawladdu intaas oo duruufo iyadoo u kadana tixgelin gaar ah xilligaas la jooga lama siinin duruuf seerta wax ku dhacday ayadoo duruufaas ku hareeraysan ay hadana sharcigii boqol la tigsta ardayga marka sababta marka qasteen number aad u far badan ay dhacaan dooda ugu badan ee ka hortimid howlwadeennada imtixaanka geynaya gobolada wadanka ayaa ahayd sanadkan ma sidii sanadkii hore ayay arday badani dhici doonaan sida uu sheegay agaasimaha wasaaradda waxbarashada aragtidii sanadkii hore ahayd arday badan dhacday ayaa walaalkood aad u xooganaa meel walba ardayda imtixaanka la geynayo oo dad waxa jira kormeerayaal iyo kaaliyaal iyo qof kabtan darajadiisu tahay booliisa ayaa imtixaanka meel walba geynaya marka uu horeysa oo dadka deegaanka la kulmaan gudoomiyaha degmada taliyaha saldhigga degmadaas dadka waxbarashada ka shaqeeya degmada marka la kulmaan waxa la weydiinaya su'aala sanadkan ma si sanadkii hore rabta in ardayda ridaan macnahaas waxa la qabsi xanuun badan oo dadka anaga howlwadeenadanada aado dhammaan gobolada iyo degmooyinka aaday la kulmeen ay ahayd laakiin marba dadka kaaliyaashaas iyo kormeerayaasha waxa loo tababaray in caqabadii sanadkii hore dhacday si u xalin lahaayeen waa loo tababaray oo hal isbuuc oo xiriir ah ayaa tababar joogtaa loo sameynaya marka deegaanka tagaan say dadku ula hadli doonaan maamulka say ula hadlayaan ardayda say ula hadli doonaan marka caqabashada waxay ahayd sanadkii hore 8,500 dhacday sanadkan 10,000 oo arday ridi rabtaan wuxuu ahaa halqabsi runtii xanuun badan aniguna waxaan xoog saarnay inaan dadka iyo deegaanka iyo macallimiinta iyo ardayda ku dejinno u sheegno inuu imtixaanku sanadkan ka fiicnaa doono kana duwanaa doono kana fududaa doono kii horeeto halka uu ka socdo sixidda imtixaanka oo ah howl ku yaala dugsiga tababarka booliska ee General Kahiye Ex-School Polizia oo aan tagay ayaan ku arkay sida aan loogu ogolayn howlka cid aan ahayn macallimiinta imtixaanka saxaysa iyo howlwadeennada caawinaya waxaana dibadda howlka taagan askar ka tirsan ciidanka booliska agaasima Caabi ayaan weydiiyey sababta ay u xusheen dugsiga tababarka boolisku inuu noqdo halka lagu saxayo imtixaanka waxa uu muhiimsan amniga waana xarun weyn oo qaadi karta adeegan u baahan ku adeeg halkan yaal sida aragto waa adeeg aad u ballaaran dadka halkan joogahay waa shaqaale ka badan 8 qofood oo shaqaalaha waana meesha nambarti geli karta amni ahaan iyo baaxad ahaan natiijada ugu dambaysa imtixaanka fasalka afraad ee dugsiyada sare ee gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo ay ka qayb galeen tiro ku dhow 8,30,000 oo arday ayaa la filayaa in la shaaciyo labada toddobaad ee ugu dambaysa bisha soo socota ee Luuliyo Ibrahim Maxamed Aadan BBC Muqdisho aad buu mahadsan yahay wariyahayaga magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan ayuu kaasi ahaa warbixintaasi inooga soo diray halkaasi qaar ka mid ah dhageystayaasheena ayaa qodobkaasi aragtidooda ka dhiibtay Yaxye Ismaaciil Dhabacadeeye ee waxa uu leeyahay magaalada Muqdisho oo ka socdo sixitaanka imtixaanka fasalka 12aad waan bogaadinaya waxaana sanadkii hore jiray cabashooyin badan oo laga qabay qaabka imtixaanka loo saxay maadaama arday badan ay sheegtay in wasaaraddu inay dhaceen waxaana sanadkan laga rajeynaya inay soo laaban cabashooyinkii hore waa hagaaga haddii aynu ciyaarihii eegno horyaalka wadamada Yurub ee 2020 ayaa caawa waxa isku arki doona Scotland iyo Croatia ee Czech Republic iyo England way wada dheeli doonaan idaacadeena subaxnimana waa inaga intaa